siyaasiyiinta ku bahoobay madasha wadatashiga ee toosidda qaranka Somaliland ayaa shir jireed oo maanta ku qabteen magaalada Hargeysa ayaa waxay kaga hadleen arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen shirka talada qaran ee dhawaan ay qabanayaan xisbiyada mucaaradka ee Somaliland iyo arrintii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde uu ku sheegay shirkaasi talada qaran ee xisbiyada Somaliland ay qabanayaan inuu yahay mid isagu laga soo maleegay dalka Soomaaliya isla markaana halkaasi laga soo fangaraynayo iyo falkii shalay madaxda sarsare ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid lagaga hor istaagay in madaarka caalamiga ee magaalada Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faisal Cali Waraabe sidoo kale siyaasiyiinta ku bahoobay madasha wadatashiga ee toosidda qaranka Somaliland ayaa waxay ka hadleen faragelin ay sheegeen gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland uu kula dhex jiro iyo shirka talada qaran ee dhawaan qabanayaan xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa waxa gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Mudane Salebaan Maxamuud aadan ugu baaqeen in xilka culus ee qaranka uu hayo uu ka ekaado isla markaana uu xilkiisa ka soo baxo oo aanu faragelin meel kale oo shaqo aanu ku lahayn iyadoo mas'uuliyiinta maanta shirka jaraad qabtay ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha madasha wadatashiga ee toosinta qaranka Somaliland Mujaahid Xasan Guure Jaamac Mujaahid Cabdilaahi Xuseen Dhagaweyne injineer Maxamed Xaashi Cabdi iyo Mujaahid Xasan Ciise Jaamac sidoo kale siyaasiyiinta ku bahoobay madasha wadatashiga ee toosinta qaranka Somaliland ayaa waxay ka dhawaajiyeen in madax banaanida iyo qarannimada Somaliland ay maanta ay bohol madow ay ku sii dhacayso taas oo ay ku tilmaameen ee safiirka dalka Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya isagu booqashada ku yimid magaalada Hargeysa uu sheegay in qunsuliyadu ka furan doono waa sida ay hadalka u dhigeen magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland isla markaana ay qunsuliyadaasi ay hoos tagayso safaaradda dalka Turkiga ku leeyahay magaalada Muqdisho siyaasiyiinta ku bahoobay madasha wadatashiga ee toosidda qaranka Somaliland oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen talabaad dawladdu wax weeyaan faragelin badan bay ku haysaa baarlamaanka iyo xukuumadda iyo garsoor waa saddex dhadhaar oo isdheeli tira inay shuuntooda midna midda kale faragelisana ma aha laakiin waxaad moodaa inay dawladdu gacan haadis iyo u yeedheerad iyo ay ku hayso dhibaato badan ay ku hayso baarlamaanka kolka waxaanu dawladda leenahay hawshiinaad ku ekaataan baa malaha fiican oo aad ka daysaan baarlamaanka faragelinta waxaan ka hadlayaa safiirkii halkan loogu yimi ee Turkiga safiirku xamar ayuu ku qoran yahay halkan wuxuu yimi inuu qunsuliyad ka furo ومن سبحان الله إن مدحوينه إني وسفيرك حمر هلكم قابله أدوية كلمة بنجيري ورجع كرتو إثيوبيا أيوة حباس إنه هلكن قنصلية كفر مدحوينه السلام عليكم مدحتينك سولوي وحنا أقبل لك وسب ستيشن النقمة حمرنا عاصمة ديني هاتو قال إن مدي سوماليلاند إن دبل يسوي ديو وارماتين باسبور كي بدي بتفصحلي وحش كلا قلت لك وزيرنا دي توجو كيني سهلكن وانت قرب كابر بريك سودقين مدحتون الدبل اللي جوهي وحويا وحن ومضوا وي عركتها ميل دير بان لقيت دوري دونا وحي هرين صومري وحكفهم وحان انه ترك لهين ولا عرر هرين وسو عرقنا وحويا ومضوا إني وحديد او شرايطك كقرطو او كم مظاهرات او درين كذا بوجس أي اللي بهيه talada qaran ee la soo jeediyay xisbiyadu ay wadaan imika waxa weeyaan mid xisbigan imika xukuumadda haya ee kulmiye oo hore u qabtay weeyaan hore u qabtay 2006 buu qabtay ayaga iyo u cid baa wada qabtay oo labadaas mucaarid ha markaa udub baa xukunka haysay Allahumma salli ala nabiyina Muhammad madaxweynaheena maanta ayaa halka ka hadlayay oo si adag u hadlay oo waliba xukuumaddii markaa ku yiri haddii xukuumaddu ay ictiraafi weydo qaadan weydo talooyinkan halkan doodan qaran ka soo jeedinayno annaguna xukuumaddii in reeyaalo madaxda ka ah ee udub ma ictiraafsan halkan kaliya waxaan ka hadlayaa shalay airportka Hargeysa waxa ka dhacay xisbiga u cid madaxdiisii oo ka soo degaysay airportka inay galaan baluuti madaxdii oo uu ka ahaa musharaxa madaxweynuhu inay galaan airportka oo ay qaabilaan madaxdoodii in loo badiyo wax kale iska dayo waxa shaashada ka muuqanaysa gudoomiyihii wuxuu
lugaynayo jiidanaya baashiisii ilaa albaabka waxay ku kalifteenaya albaabka hortiisa ku qabsan shir jaraa'id oo ay wixii jiray ay ka sheekeeyaan waxa ka sii daran oo la yaaba oo wax la qaadan kara baan ahayn ninkii madaxda airportka madaxda ka ahaa oo shaashada intuu soo fadhiisay waxba ma yidhan waxba ma yidhan taasi ma caqli xumaa ma aqoon darra ma dhaqan sidiisa isaga jiro maxaan ku leedahay hoggaanka maanta jira leeyahayba